Assalaamu calaykum walaalayaal. Ha laga faa'iideysto labada maalin ee sagaalaadka iyo tobnaadka waa soonkaas oo ah bisha Muharram ha laga faa'iideysto. Rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu soomi jiray maalinka tobnaad ka bacdi wuxuu dhintay. Wuxuu yiri markii uu dardaarmay maalinta tobnaad waxaa la soontay Yahuuda. Uu dardaarmay wuxuu yiri sanadka dambe hadaan gaaro sagaalaadka waan ku darayaa. Isagoon ku daran buu dhintay, uu geeriyooday. naxariistii janna Allah siiyo rasuulkani sallallahu alayhi wasallam. marka maalinka tobnaad haddaad awoodid maalinka tobnaad soon, maalinka tobnaad inaad soontid waxaad ku helaysaa ajar hal sano oo ajarkeeda dambi dhaafkeedana ah waad ku helaysaa. marka hal maalin oo hal sano dambi dhaafkeeda ku heshay wax ka wanaagsan ma laha. marka maxaan ku raadaaye qofkii awoodaha ku daro maalinka sagaalaad ama maalinka 11aad waa khilaaf Yahuuda la khilaafayo. marka waxa weeye ha laga faa'iideysto halkaas maalin oo fadliga badan oo ajarka badan oo Ilaahay noo sheegay oo rasuulku noo